dhibane Xuseen Maxamed Cabdi waa muwaadin Soomaaliyeed oo in ka badan 3 sano ku xanuunsanaya magaalada Muqdisho kaasoo isagoo ka shaqaysanaya wadanka Yemen xanuun dhinaca lafta dheer ee dhabarka ka haleelay waxa Xuseen Maxamed Cabdi hadda ku xanuunsan yahay magaalada Muqdisho waana ruux naafa ah oo aan socon karin wuxuuna ka soo jeedaa qoys saboola Xuseen waxa haleelay cudur halis ah oo kaga dhacay lafta dheer ee dhabarka taasi oo uu sheegay in xanuun dartiis uu soo saaxan karin xilliyada habeenkii 3 sano xanuunsan biraha 2 sano iyo barbaan wata biraha aniga gatay dibkaas ay hay'ad lafta dhabarka ah sabool waa xoolo mahadsan nin meel daryeel nin meel ugu malaha marka waxaan soo miciin badi in telefishinada aan soo tagay marka waxaan soo bixiyay hay'adaha dawladda ugu weyn in soo wax ka codsado oo li caawiyo dhibane Xuseen Maxamed Cabdi ayaa ka codsaday dawladda federaalka Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed inay ka caawiyaan sidii uu heli lahaa adeeg caafimaad maadaama uusan awoodin inuu iska bixiyo kharashaadka caafimaadkiisa waxaan ka codsanaa madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo Qayrlaasi ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre gudoomiyaha baarlamaanka in li caawiyo caafimaad li fiiyo gargaar caafimaad li fiiyo hooy mahasaliisi hatta mooto ku socdo hatta leeyahay caafimaaddan way ilaahay caafimaadka wata hatta mooto yar ku socdo oo hatta liisi gargaar caafimaad liisi kadib mooto liisi waa aan ka codsanaa madaxweynaha Soomaaliyeed ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre gudoomiyaha baarlamaanka Xuseen ayaa waxa uu ii sheegay inuu leeyahay xaas iyo caruur kuwaasi oo ay haysato duruuf adag ee dhinaca nolosha isagana waxba uusan u awoodin xilligan Muuse Cusmaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.